شباب أم بعيرك قل أم بعيد قل هوية أم بدك الصوماليين الدنيا كجوا واس بيرسدي إلا جعري برجاني إلا قل هريري إلا حضر دير أنا قلت له عندما تقول كلمة كسر أنا قلت قدونا أنك شباب وإحنا نحيا لما له الدنيا عقاده مالك استانس كسوق مني أدوركم يا شيخ عكتين جوك سمي هيدا وقار كمد معوسليدا بيش حوالله كسو جيد قبل كهيران وقاري دقمدا آدن يبال قبل كشبين لحده kadib markii codsi uga yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kolkii uu tagay degmada Moqokori kana codsaday beesha xawaade in ay garab buuxa ay siyaan gobolka Shabeellaha Dhexe si cadowga kooxda argagixisada ah ee arxanlaawayaasha ah ee waayahan dambe gobolka Shabeellaha Dhexe xoog soo saaray deegaano badan ka qabsaday sidii looga sifayn lahay Ruwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid isla durbadiiba beesha xawaadle macusleedeeda waa ay ka falceliyeen oo ay way ka jawaabeen oo si degdeg ah ay uga jawaabeen isla maanta ay gaareen deegaanka ama degmada aadan yabaal runtii waxaa la doonayaa in kooxda argagixisada ah halkaas laga safeeyo gurmud xoogan ayaa halkaas gaaray degmada aadan yabaal maanta gaaray oo ka kala yimid gobolada mudug galgaduud iyo hiiraan runtii waxaa la rajaynayaa kooxdan argagixisada ah ee gobolkeediiba dhacay ee hadda intee galnaada ku hayo oo hadda meel kastaba diyaarado ay dul taagan tahay ayaa waxaa la rabaa sida maalmaha soo socdo in gobolkan laga sifeeyo gabi ahaantiisba waayahay kooxda argagixisada ahayd gobolkoodii horta wuu dhacay waana ilaahay mahadiisa haddii maanta diyaarado dowladdu ay leedahay ay duqaynayaan runtii waxaa dhacay 40 saac ee soo dhaafay duqaymo ba'an ayaa dhacay oo kooxda argagixisada ahaa goobo kala gedisan lagula beegsaday meeshaan aad u jeedaan waa deegaan hoos yimaada degmada ceelbuur halkaas oo ay ku shirayeen madaxyaweynta kooxda argagixisada ah ee gobolkaasi joogto runtii duqayn ayaa lala beegsaday maanta halkaasna waxaa ku sugnaay rag odayaal ah oo beelaha deegaankaasi tirsan ka mid ah kuwaas oo argagixisada ka tirsan una adeega ummadana uga soo qaada xoolaha baadda ah ayagoo halkaasi ku shirayo ayaa dhakada looga keenay dim hal xabba kama baxsan hal xabba hadda kama fiigin waaligii waxaa la sheegayaa gobolka galgaduud inuu halkaasi ku baktiyey mid kaleento asna waxaa la sheegaya Shabeellaha Dhexe ee qaabilsanay oo halkaasi ku dhintay odayaal kaleento in halkaasi ayagana ku gamaareen oo ku gubteen ayaa la sheegaya kooxda u adeegayay oo halkaasi shir ku lahay waa ilaahay mahadiisa waayahay dhanka kaleento saaka waxay soo weerareen deegaanka Sabiib iyo Caanoole oo afgooya u dhow ayagina maxaa ka raacay saaka ciidanka markii hore way iska caabiyeen kabacdi waxaa la yiri xeelad dagaal uga soo baxa goobta markii looga soo baxay ayay isku soo aruuriyeen kooxdii argagixisada ahayd maxaa ku dhacay ayagana sida loo galay waa tribal egg sidaas ayaa ayagana lagu soo afjaray kooxdii argagixisada ahayd ee saaka soo weerartay Sabiib iyo Caanoole ciidankii waa ay ka soo baxeen banaanka oo soo baxa la yiri way ku soo aruureen ka bacdina waa laga adeegtay shabaab oo calacalaya waad aragteen dhahayo jirib markii la duqeeyay fuustooyin qaraxyo ah ayaa nagu soo daadshay ayay yiraahdeen adeeryaal oo adkeystaan idin leenahay adinkaba candhameedlayaal iyo tiam iyo balaayaad soo rareyseen oo shacabka Soomaaliyeed aad ku gumaadayseen haddana fuustaaba sheegaysaan ee qombaladuryaha xataa dushalda kaga keenaya nuclear lagu dhufanaya nijaas qurmoon ayaa tiinoo kan kala ah waayahay
runtii marka dowladda dhaqdhaqaaqyo ayay wadaa yani barihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ayay wadaa oo sidii kooxdan argagixisada ahaa yani loo hakin lahay dalkana looga ciribtiri lahay runtii marka hadda maanta waxaa haddana lagu beegsaday deegaanka la yidhahdo guulane 5 gaari oo tiknika ah oo ay wateen kooxda argagixisada ah oo ku jira hal gaari oo zoo ah asna ayagana kuwaasna halkaasa waxaa looga dhigay jika bacday ayaa looga dhigay duqeymaha waa isdaba joog wayna socdaan oo diyaaradaha hadda dowladda qaarkood ayagaa gacantooda ku isticmaalayo oo dowladda ayaa isticmaalayso duqeymaha qaarkood ayagaa fulinayso qaarna saaxiibada caalamka ah ayaa geysanaya runtii marka waxaan leenahay sanad ka hor diyaaradahan dowladda ma aysan lahayn xasan sheekh waa uu dadaalay dad badan oo yani dhaleecaynayay oo ku dhaleecaynayay dhulkii dowladda ayuu gatay xasan sheekh saan waaye kan waaye war diyaaradahan qalabkaan idinkugu soo gala soomaaliya xasan go-aan buu qaatay dowladdiisa dhaqaale ma haysto diyaaradahan inuu marka dhulka gadaa oo ku qasban yahay dhul dowladeed inuu gataa oo ku qasban yahay xasan si uu kooxdani yani iskaga dhicin lahay nin kastaa wuxuu samayn lahay ayuu xasan sameeyey marka yaan lala yaabin diyaaradahan maanta ee dowladda adeegsanayso oo gacanteeda ay yani ku jiro waa diyaarado la soo iibiyey labadan diyaaradood oo hadda turkiga keenay xataa waa diyaarado la soo iibshay barka warama wax la soo iibiyey hadda marka waxaan leenahay kooxda argagixisada ah markaa insha allah waxaa la rajaynayaa dhowaan haddii ilaah yidhaahdo in casharo waaweyn loo dhigo dalkana gebi ahaantiisba laga xoreeyo runtii hadda diyaarado casri ah ayay dowladda la timid oo turkiga oo farsameeyo oo bayraktaar ekinji la yidhaahdo kuwaas oo aanan soo noqosho lahayn 25 saacadood ayay hawada ku jirayaan halkii marna waxay beegsan kartaa 8 aag ayay beegsan kartaa oo 8 gantaal ayay garbaha ku qaadataa 25 saacadoodna hawada ayay ku jiraysaa markaan ayaa gurigoodii bacay bayraktaar TB2 oo runtii aan aad yani tayo fiican aan lahayn oo meel dheer aan ka soo howlgeli karin ayaa hore dalkan u jooga laakiin hadda waxaa la keensaday 7,000 oo kilomitir ayay ka soo fulinaysaa wax allaale waxay rabta diyaaraddan 7,000 oo kilomitir eg waxgee waa halkaan muqdisho iyo waxaa weeye iyo South Africa oo kaleento ama muqdisho ilaa iyo turkiga oo kaleento halkaas intay ka soo adeegato ayay ku soo laabanaysaa deegaankii meeshii iyo saldhiggii laga diray ayay ku soo laabanaysaa insha markaan horta waxaa weeye kabahooda ayaa loo gelinayaa insha allah waxaan leenahay marka dowladda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed guul ayaan u rajaynayaa insha allah kooxdan khawaarijta ah way jabaysaa waana laga adkaan doonaa dadka qaar waxaa arkayaa xoogaa yacni qalbadda iska dilayo ama isniga jebinayo wariyaa la niga jebin soomaaliya kooxdan naflacaari weeye baryahan waxaad ku aragteen dhaqdhaqaaqyada baryahan ee wadaan waxaa weeye waa dhaqdhaqaaqii ugu dambeeya waaye waa naflacaari meelay aadaan ma leh marka waxaa weeye inay marka waxaa waaye wax ay dhiig iska baaraan ayay doonayaan laakiin ayagii ayaa balaayo isku kiciyey huunyo ayay isku kacsheen quraansho ayay isku kiciyeen oo hadda duqaymo hameelo badan ayaa laga geysanayaa marka insha allah waxaan leeyahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaan u rajahaynaa guul iyo cadowgan in laga guulaysto oo jabo insha allah waxaan arki doontaan deegaano badan oo maanta gacantooda ku jiro oo laga saaray oo amni ah oo nadiif ah ayaa la arki doonaa maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo waa salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliya meel kastoo aad joogtaan u soo duceeya geesiyaasha soomaaliyeed ee halgamaya ee ayadoo ramadaan ah oo weliba xataa ay sooman yihiin baaruud ku dhex jira wiilasha soomaaliyeed hadday yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hadday yihiin kuwa shacabka deegaanada ka yimaada runtii waxay maanta naga mudan yihiin in aan u ducayno u soo duceeyo walaalayaal inuu ilaahay guusha uu siiyo kooxdan argagixisadana yacni si fudud looga taqalusiyo salaamaya dhammaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu